waxaan idinku bishaareynaya inuu aad iyo aad maanta farxad inoo ah in saddexdii gole ee golaha wakiilada iyo baarlamaanka iyo madaxtooyadii ama guddigii fulinta dowlad xukuumaddii iyo axsaabtii ay ku midaysan yihiin in difaaca qaranka loo midoobo oo aad shalay iyo dalkaad raadiyooga ka dhegaysanayseen labada gole oo ka doodaya in laga soo saaro sharcigii la iskaga celin lahaa dowladda xamar ee taag daran ayna soo haweysatay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intii hore sida ay tiri waa ku raacsanaha waxaanu aad iyo aad idinka mahad celinaynaa soo dhoweynta aad iyo aad u ballaaran ee laga yaabaa inaydaan 24 saacadood dambeeyey seexan oo intaa annaga dartayo iyo karaameynteeda u soo taagnaydeen. waxaan si gaar uga mahadnaqayaa haweenweynaha carruurtoodii qaar degta ku siteen guryahoodii bannaanka uga soo baxay ee iminkooy duhurkii ku dhowdahay ilaa xalaysaa u taagnaa si gaaraan ugu sii mahadnaqayaa. mahadnaqaa kadib intii laga odhan lahaa gobolka hawd waa laga yidhi maxamed kahayn baa u taataabtay waa ku raacsan. maanta dalkeenu wuxuu marayaa marxalad ah laba marxaladood iska hor imanaya. mid waa difaaca qaranka midna waa doorasho. labaduba way adag yihiin way culus yihiin labadaba waynu ka bixi karaynaa markaynu taladeena midayno aynu danteena meel uga soo wajeedsano. balligubadlo ama hawd lagu dardaari maayo taa horay dalka xorriyadiisana hormood uga ahaayeen nabaddiisa hormood uga ahaayeen horumarkiisa hormood uga ahaayeen hadda laga dardaari maayo. waxaynoo ballana inaynu difaaca iyo doorashada u midowno oo nafta u huro oo labadaba hirgelina haddii alla yidhaahdo. ta kale waxaa inoo bushaara ah maanta 17 cisho ayay ku tahay intii aanu gobolada maraynay gobol wal iyo degmo walba iyo koox urursan wadadaanu aragnaba dareenkooda wuu midaysnaa waxaanay u moodeeyeen labada qodob ee maanta la hor yaalla bari iyo galbeed. waxaa intaa dheer waxaa aad loo canaantaa oo canaan u laga saaraa golayaasha siyaasadda qolada siyaasadda ka shaqaysa ama maamusha waa la canaantaa. waxaa leeyahay canaana iyaga la saaraa xisbiyada iyo golaha wakiilada iyo golaha guurtida iyo golaha fulinta ayaa canaanoo dhan la saaraa iyagaa waxaa xumeynaya iyagaa xumeynaya. waxaan idinku bishaareynaya inuu aad iyo aad maanta farxad inoo ah in saddexdii gole ee golaha wakiilada iyo baarlamaanka iyo madaxtooyadii ama guddigii fulinta dowlad xukuumaddii iyo axsaabtii ay ku midaysan yihiin in difaaca qaranka loo midoobo oo aad shalay iyo dalkaad raadiyooga ka dhegaysanayseen labada gole oo ka doodaya in laga soo saaro sharcigii la iskaga celin lahaa dowladda xamar ee taag daran ayna soo haweysatay. bushaaradaasi waa kow mar haddaynu saa uga midaysanahay difaaca qaranka cid walba inaga ka adag saynu horeba uga adkaan jiray dhibaato kastoo jirtana waa saxanaynaa. ta doorashadana saasay insha allahu nabadgelyada ku dhammaanaysaa idinkuna taasaa hormuud ka noqonaysaan oo taariikhda idin faraysa.